hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah qorshaha ugu weyn ee maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug. Wadooyinkan oo dhexmara xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka shaqeynayay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka degmada Gaalkacyo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo si wax looga qabto wadooyinka burbursan iyo sidoo kale kuwa ay xireen biyaha xaafadaha ka tirsan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. محمد علي حرسي قدومي كحوجينك مامulka degmada Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay galabta oo bishu tahay toddobadii bishii saddexaad 2020 waxaan ka shaqeynaynaa wadooyinka halbowlaha oo magaalada Gaalkacyo hadda ka horna waxaan ka soo shaqeynay ilaa 4 wado ayaan soo habayna soo sameeyay soo carab bixinay meelaha waxa weeye meelihii biyuhu ay aad u fariisan jireen oo go'naa weeye wadadaasaan galabta furaynaa waxaan marka ka hadlaynaa oo kaga faa'iideysanaynaa galabta saxaafadda magaaladan waxay u baahan tahay laba qaybood ayay u baahan tahay labadaas qaybood oo ah nabadgelyo oo xagga ammaanka baryahan maaragtay uusan fiicnayn oo dhalinyaro maaragtay bahashii qamra cabta ay himinkii ku soo dheelmato oo magaalada geeseeda inta fariistaan bay magaalada ku soo funaanayaan. سعيد سلاد علمي قدوميها كميل جارك degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo ka hadlay dhismaha iyo dayactirka lagu wado qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan Gaalkacyo ayaa waxa uu tilmaamay محمد على حساب الشيء حقيقي قدوميها ka sheegay waa mudabirahan ku jirnaa hawshan waxaana magacaabay madaxweyne Axmed Ducaalaana magacaabay kadib markii xilligiina uu dhamaaday dadka mas'uuliyadda gobolkan hay'adaha iska danaysteen oo siyaasado iyo wax ayaga aan loo dirsan iska dhaxgaleen inta muddadaas bisha ahayd waxaan qabanay wax muuqda 20 casho waxaan ku jirnay qashin xaqid magaalada oo qurtay ilaa iyo mataqaana 180 lowd oo qashin magaalada ka saarnay اسبوعان كي هore waxaan bilownay inaan jidad xiran oo biyo gooyeen oo caafimaadka qarribay wadax ku xiran yihiin waa laga dhistay buushawse iyo xaraari inaan furno jidkan waa jidkii lixaad weey oo hadda aan ka shaqeynayno ilaa 30 lowd oo mataqaan arakaawaha sidamay baan dhibnay galabtana waxaan u soconaa inaan bal jidkii furno arakaawada kala bixino annaga hawshaas aan ku jirnaa dad xildoona ma nihin dad hunguridoona ma nihin waxaan mahadweyne qoranaynaa dadweynaha oo gacan lagu siiyay intii aan shaqeynaynay oo dhaqaalihii iyo tan iyo markii la magacaabay maamulka kumeel gaarka ah ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug ayaa bilaabay wax ka qabashada ololaha nadaafadda iyo sidoo kale hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, Gaalkacyo.